السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تايدا ولا شيء شنكران شنل كان على سلطان وشنكران شنل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تايدا ما لا يمغلا عاد بان زي السلامي ولا شيء شنكران شنل كان على سلطان شنل كيغا يانون waa channelkeena asxaabtayda aad baan idin salaamay soo dhawaada. Anyway horta waa baxaye anigan xaafada kasii baxaye aad baan idin salaamay waxay barbaa laakiin inaan kasii dabageeyo waayo intan baraha bulshada saas u yaacaya barbaa de anigana yaac inaan de bal fikradeeda ka dhiibto waxawaaye waxa jirto horta barnaamijka maxay tan inoo soo share garaya subscribe leegta asxaabtayda inta igu cusub iyo intii la wada horey la joogtay baa baan islaamaya dhammaantiin waana ku mahadsantihiin markasta ay igu soo beereysaan. waxaan rabaa maanta waxaan doonayaa inaan topic ka hadlo oo ku saabsan maxay hadir waxaa jirta iminka dhibaatadan oo Soomaaliya kusoo korortay baan doonayaa inaan ka hadlo oo maxay haysanay dadkan ubadkeeni waxaan arkay niman iyo naago iyo dad la soo leeyahay yani carruuri bay qaadanayaan ama se qaateen ama se lagu qabtay. Anyway hadda adigu muddo bil meelahaas gaaraysa waxaan baraha yani ku arkay baraha bulshada gabadh la wareejinaya ahani lagu sheegay oo la dhahayay maxay haytana carruuro oo maxay haytana carruuro lagu tuhumsay tuhumba maaha yani ayada xataa qaratay oo dhahaysa markaan carruuraha soo xadayo maxay haytana sida baan u labistaa qaabka noocana baan u labistaa ay dhahayso waba la isaga yimiba nimanaaba soo baxay oo iyada shirkadan oo isku xidhan oo dad loo iyagu oo wada shaqaysanayo waa kada soo arkayseen waa la socotaan waxba idinkama qarsooma. dhibaatada taagan horta waa mid laga xumaado dad Soomaali xadaya wallaahi billaahi horta waa wax aad looga xumaado aad baan uga mudugoonayaa maxay haytaan dad Soomaali oo ubadkoodii iyo beerkoodii guranaya yani ma dhihi karno dee dadkan xubnaha ubadkeena ka ganacsanayo Soomaali in ku sheegi karno Soomaali waa la iska wadayaan malaynaya laakiin Soomaalinimadii malaha ya waa hawada ka baxda. Anyway marka waxaan rabaa inaan waxaan dhiirigelinayaa de maadaama sidan bafashay adduunka horta dhibaataa jirta horta ilaahay ubadkeena xifdiyo aad baan uga warwarsana hooyinka Soomaaliyeed maanta ubadkoodii dad Soomaali yahay intay haystaan maxay haytaan yani maanta ubadkaaga dad Soomaali ka ilaalinayso lagu soo adeegsaday dhibaatadeeda ay leedahay macado kale iska ilaaliya mise walaalka baan iska ilaaliya wallaahi horta waa arrin aad iyo aad u xun haddana way dhacday dee halkanaa dadkii ma garanaysaa halkanaa dadkii ka haysatay marka waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan horta leeyahay ummadda ilaahay hee may anaa wacaya suga may una baxaynaa laakiin anaa wacaya suga haa asxaabtayda waa laga soo kale yani horta sideedaba waa sii baxayay inteeda baxayba laakiin aan idin kasii gaarsiiyo waxa weeye markaas hooyinka Soomaaliyeed horta iyo dee macnaha waalidiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay inta ubadkoodii ka maqan yahay horta ilaahay maxay haytaan hawsha badbaadiyo ilaahayna cadowgaas ka haysta gacanta yani dad badan hadda dhahay u badan naga maqan dadaa dhahay reeradhan naga maqan waxaan leeyahay qof kasta ilaahay ubadkiisi iyo wixii ka maqanba ilaahay horta u soo badbaadiyo cadowgaasna isbiirsadayna horta waxaan leeyahay meel looga soo wada jeesto qayb isbiirsatay badda Soomaalida iyo qaybta kale soo hadhay ee masaakiinta la daldalanaya xubnahooda laga ganacsanaya waxaan leeyahay meel ha uga soo wada jeestaan
cadowgaas meel looga soo jeesto. waxaan kaloo dhiirigelinayaa hay-adaha amniga dowladda waxaan leeyahay maxay tan arrintaas in wax laga qabto yacni inaan la iska dhigan qof baa lasoo qabanaya beri ka maalin waa la xidhaya falka noocaasa lagu soo eedeeyo ubad buu xaday ama xaday ama sidan buu leeyahay okay waxbaba dadkii lama aha miyaa oo dhibkaas ma muuqdo miyaa aad baan uga xumahay maxay haytaan in maanta carruurtii soomaaliyeed laga ganacsanayo in dad walaalahooda soomaaliya ka ganacsanayaan waxaan leeyahay horta ilaahay cadowgaas ha naga qabto ilaahay naga qabto ilaahay naga qabto soomaaliyeed waa laysu tashaday waa laysu soo tashaday markaas ilaahay horta hayna badbaadiyo ilaahay hayna badbaadiyo jiilka soo korayana ilaahay ha badbaadiyo ilaahay masiibada ha naga dulqaado waxaan leeyahay hay-adaha amniga iyo dowladda waxaan leeyahay inay gacan ka geystaan waxaan dhibkan ka socda dadkan dadka guranaya dadkan san u dhaqmaya waxaan leeyahay gacan ha laga geysto shacabka waa inay digtoonaadaan waa inay dowladdooda la shaqeeyaan waa in wax kasta meel kasta arhanin dhaqdhaqaa ka jiraba iyagii baa la xadayaaye cadowga noosankiibuu si kasta idin gurtay si kasta u dhamaystay marka horta ilaahay soomaaliya masiibada ha ka saaro masiibo awal bay haysatay oo al-shabaab iyo dad afka soo dugtay lagu kiciyey iminkana dad ilmihii guranaya haddii lagu kiciyey wallaahi horta aad baan uga naxay aad baan uga xumahay meelaan ogahay baa xanuuntay oo idaanqoontay idinkana waa ila dareemaysaan markaas asxaabtayda waana sii baxayay waa degdegsanahay aad baan idin salaamaya barnaamijka sii shaar garaya dibadka subscribe-ka channelku waa channelkiinii lagu dhiirigeliya commentiga xagga hoose subscribe-ta like-ta soo dhaweeya asxaabtayda la-aantii waxba ma ihi aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu